wasaaradda gaashaandhigga waxaa jira hadallo waxay jirtay wada hadallo inooga socday warbixintii wuxuu naga siiyay ciidanka Tukarraq iyo xaaladdu halkay marayso taasoo ay sheegeen in beesha caalamku ay ku dhex jirtay sidii nabad lagu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan Tukarraq taasoo Somaliland iyo ay isaga dab qaadeen iyo Puntland wuxuu noo sheegay qodobadii la soo qaatay ee la soo bandhigay inay ahaayeen 4 qodob oo ay koow ka tahay in xabad joojin rasmi ah la sameeyo in arrimaha bini'aadanimo dhinac waliba fulaydiyo oo la sii daayo in maxaabiista la isdhaafsado wixii maxaabiista la iska hayo iyo in wada hadal la furo taasoo dhammaan shuruudahaasi ay Somaliland si toos ah u aqbashay ilaa imikana laga leeyahay dhinacii kale kuwaasoo dhammaantood ay horeba Somaliland uga goonayd inay si nabadgelyo ah loogu wada noolaado haddana ay soo dhaweynayaan nabad ku wada noolaanshaha mantiqada sidoo kalena waxa uu wasiirku noo sheegay inay ciidamada qaranku ku filan yihiin sugidda dhammaan xuduudaha jamhuuriyadda Somaliland haddana ay ku sugayeen inta badan marka laga reebo qaybo ka mid ah gobolada bariga kuwaasoo ay xukuumad ahaan go'aan ka tahay in lagu gaadho si nabadgelyo ah si waxana looga qabto baahiyaha asaasiga ah iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha